baahan yahay indhaha anaga indhaha caadiga inaan ku noolaana ma aha keligood maalimo badan baan kaa maqlay dood hiisay ciise masiix uu ka adkaaday dhimashada arrintaas manoo sharax kartaa waxaa laga wado aad iyo aad baan u jeclahay inaan noo sharaxo waxaa la dhahaa riyaaq kusoo dhawaada barnaamijka la dhaho adaalku ku tookalay maanta waxaa ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan haweenka Soomaaliyeed maanta stuudiyaha waxaa la joogto Raxma kusoo dhawaad Raxma waa maasantaa riyaaq hay Raxma wax ma ka sheeg kartaa nolosha haweenka Soomaaliyeed riyaaq haddaan wax kaaga sheega nolosha haweenka Soomaaliyeed badankooda aad bay u dhibaataysan yihiin waayo yacni dhaqankooda iyo korismada gurigooda ayaa bedelaya noloshooda caadiga marka waxa weeyaan qaar ka mid ah wax bartaa jirta Soomaalida haweenkooda oo yacni sida ana wax u soo barto kala soo bartay oo nolol fiican ku soo koray oo waalidiintooda si fiican wax u soo bartay taasna Ilaahay baa mahad leh sida ana oo kale wax u soo bartay laakiin habeena badan Soomaaliyeed ayaa dhibaataysan oo markii ilmaha yar yihiin iskool lama geeyo maxaa keenay barshalaanta waxaa keena ayagoo iskool la geenin markay yar yihiin oo yacni oo guriga iska jooga oo markii 7 sano gaaraan waxaa la baraa shaqada guriga marka saas la aligeeda waqti ma siinayaan ay banaanka ku ciyaaraan ciyaalka ama waqti ma siinayaan waxbarasho yacni sidaa la aligeeda noloshii waxay noqonaysaa yacni nolol oo guriga ku eg oo maxbuus guriga ku ah ciyaalkii oo waxaa dhacaysa in gabadhii oo Ilaahay lagu aaminayno oo xurnimo banaanka ay ku ciyaarta taliye ay haysan wiilasha Abraham oo baxayaan ama iyaga taa guriga ma joogaan wiilasha waxa way bixi karaan way soo ciyaari karaan banaanka oo wiilasha iskool baa la geynaya oo meel kasta aadayaan laakiin gabadhii waxa ka haysta in ay qalad ka fahamsan yihiin gabadha hadii banaanka aad ama banaanka ku ciyaartay wax xun baranayso hadii weynaatan ay ka daran tahay saalaaligeeda gabadhii nolosha waxay ka waxmaanaysaa marka hore waxay ka bilaabmaysaa qoyska ay ka dhalatay inay gabadhii waxbarasho la'aan dhigaan oo gabadhii ay dhigaan yacni inay saaxiib la ciyaarin inay banaanka ku ciyaarin inay dariska u wareegin ee tahay in ayaga ilaalsan karaan iska dhadhacsiinayaan laakiin ayaga waxay ilaalin karaan ma laha kuma kalsoona Ilaahay dhibaatadaas maxaa keenay dhibaatadaas waxaa keenay kalsooni la'aan oo ayaga ay Ilaahay ku kalsooneen ee ilmihiin ay wax bareenin yacni ayaga u maleeyeen ilmihii inay ayaga celin karaan ama ilaalin karaan taasna qalad u aragnaa waxa way wax kastana Ilaahay baa ilaalin kara ilmaha shal Ilaahay baa siiyay marka ma arkaan in ilmahaas Ilaahay uu ilaalin kara markasta waxay isku dayaan in ayaga ilaalin karayaan laakiin man ilaha anaga waalidiinteena Ilaahay bay iska aamineen waxa xun iyo wax qalad kale oo naloo soo sheegay waxaana dhacday in anaga banaanka ku ciyaarno sida qaarka kale oo wax bartay oo banaanka ku soo ciyaaray oo iskuul aaday oo ayaga ra'yigooda dhiibanaya oo wax kasta waxa qaladka iyo wax kale loo sheegay saas laaligeeda dhibaatayaal fara badan ay ku korayaan hata tan guriga markay banaanka aadaan hata waxyaalo badan ay la kulmi doonaan laakiin maxaad leedahay ka maqan nolosha haweenka Soomaaliyeed waxa ka maqan waxyaalo badan ayagoo la barin iskuul ayagoo aadin ayagoo la barin inay wax doortaan ayagoo la barin inay go'aan leeyihiinba ama isku filneenba markasta waxa waaye go'aanka waalidka iska leh ilmihii ma la barin inay isku filan yihiin ay go'aan dhiiban karaan wixii xunna waa xunta ay dhihi karaan wixii fiicanna waa fiicanta ay dhihi karaan ama ay dhihi karaan ayba maskaxdooda ay dhiiban karaanba waalidkiiba maba la hadli karaanba wax jaceylba kama dhexeeya waalidkiina ma ay barin ilmihii inay jaceylkooda noolaadaan kasaal aligeeda waxaa imaanaysaa inay waalidkii ay barin ilmihii inay dhahaan la sheekaystaan inay isjeclaadaan ay dhahaan maxaa u baahan tahay yacni waxaan ma ka heshaa ama waxaana kama heshid waxaasoo dhanba lama barin saas laaligeeda ilmihii waxay imaanayaan waqti adag ay maskaxdooda dhiiban karin waxyaalo badan ayaa kusoo furmaya noloshooda oo ah in ay cabsi u timaado ama ay qofka dariska hadii arkaan bay dhaha ka fiiriyaan ayba ceeb la tahay in la ciyaaro ama banaanka la aado waxay u arkaan wax oo si kale ah laakiin Ilaahay suu arkaa haweenka Soomaaliyeed Ilaahay waa jecel Ilaahay wuxuu arkaa markasta wuu jecel yahay wuuna arkaa dhibaatayaasha haysata laakiin Ilaahay yani ma waqti imaanaysa Ilaahay oo yani uu leeyahay saana xaq ay u leeyihiin saana xaq uma laha
ilaahay wuu jecel yahay ilaahay wuxuu jecel yahay sida wiilka markii sida wiilashu jecel yahay ay u arkaan Soomaalida wiilka inuu yahay wax wanaagsan isku markii wiila dhashay meesha xaafadda meel kasta yani wiilkaas dhashtay meel kasta laga maqlayaa yani saasoo kale wiilkaasoo kale la mid tahay gabadhan ilaahay ugu arkaa indhihiisa inay xaq u yihiin labadooda isla sameeyeen wax ay kala sareeyaan ay jirin oo labadooda ay yihiin laba qof yani ilaahay haddii uu siiyey familka ilaahay haddii wuxuu u siiyey caruurtan wiil gabarba ilaahay sii u arkaa isku sii u jecel yahay ilaahayna wuxuu arkay familka inuu ku fiican yahay wiil gabarba inay helaan yani hadiyadu u siiyo wax ayaga keensadeen maaha marka ayaga ma fahmayaan yani qalad ay ka fikireen yani waxay arkeen waxay doorbidayaan in magacooda uu ku fiican yahay yani wiilkan hadduu dhashto waxay leeyihiin wiilkan magaciinu wataa oo waxa waye wiilkan aabbaha magaciisu qaadanaya yani waqti badan u soconaya yani farac ka farac laakiin ma ifa gabadhan waxay isleeyihiin gabadhan way weynaanaysaa berita nin baa wadanaya ninkaas faraciisay ka tirsan tahay marka qaladaadkaas oo kale ay aaminsiin laakiin ilaahay jecel waaya tiri siduu ilaahay u jecel yahay haweenka Soomaaliyeed ilaahay wuu jecel yahay waayo wuxuu jecel yahay inay nabad ku noolaadaan inay helaan xaqooda inay wax bartaan inay horumar gaaraan inay yani shaqaystaan inay iskuul aadaan inay caruurtooda wax baraan yani haweenka Soomaaliyeed haween adag oo ka adag gurigooda iyo caruurtooda iyo dhinac kasta hataa haddii dhibaato kusoo biirto lagama yaabo inuu dariskooda ogaado hataa ninkaas haddii dhib ku qabta lagama yaabo inay meelaha yani codkeed ka dhibato ama tirada dhibkaas ay haysta oo wasaan ma dhees way qarsanaysaa wax alaal waxay u yimaado gurigaas hataa gaajo hadday tahay way qarsanaysaa waayo waa naag adag laakiin taasoo kale ilaahay uma ogola dhibaatada qaarkood inay dul qaadato oy dusha saarato yani ilaahay waa jecelkaasna waxa wuxuu rabaa inuu nabad ku noolaadaan noloshooda ahaata mid oo degan codkooda ay dhiiban karto oo jecel ah iyadoo saas u fiican hataa hooyadii aabbaha ma garanayo maanta gabadhaada yani wax fiican ay samaysay yani gabar fiican waaye hataa inay ku dhaan waxaa tahay qof aad u karti badan hataa yani wax fiican hadal fiican inay kusoo celiyaan hataa ma fahmayaan ninkana sidoo kale waxaa laga yaabaa iyadoo xaaqinka wadda guri ka shaqaynaysa inay nin u yimaado oo dhaho reerka gabadha mana sii kartaa jacayl badan maa ka dhexeeya haweenka Soomaaliyeed iyo nimankooda ama waxaba waaye gabadhii iyadoo guri ka shaqaysa ayaaba ninkii soo doontay kasoo qaad markuu soo doontayna gabadhii ninkan weligeed may arkin waxaaba dhacaysa go-aankaba aabbihii hooyadii iskale gabadhii oo sidii ah oon weli banaankii baran oo wax maskaxdeeda kala furmin oo weli hawshii guriga ku jirto oo xaaqinkiiba haysaba ka dhig in ninkii yimaado go-aan lala yeelan gabadhii la dhaho dharkaaga shandada gurido waa ka ninkaasa ku aroos caawaaba xafalad waaba arooskaaga wiigaan ma dhihi karto ninka may arkin ma dhihi karto ninkaan ma rabi yani ixtiraam lama sameyn yani lama gaata lama qadar kaale ninkaan bal arag ninkaan yani mala noolaan kartaa bal sheekaysta ata waqti lasma siinin yani waqti go-aan ata lama siin waqti dheerna lama siin waqti gaaban lama siin arooska waaba la dhigaaba go-aankaaba la gaaray yani anagaaba ku siinay waalidka ah ayagaaba go-aanka gaaray kamaba hadal celin karto maku faraxsan tahay sheekada waxaa dhacay badankooda maku faraxsana waayo waaba qof 17 jir 18 jir marka 30 jir loo geeyo ama ka weyn yani markastaba ninka gabadhaha yar qof la eg uma badna waxaa u badan rag kaba weyn marka meesha shoog kale ah laakiin waxay baratay in ay hadal celinin oo hooyadii aabihii go-aan kala hadaan markasta mana la barin inay go-aan leedahay ay codkeeda dhibato aligeed gabadhii way qaadanaysaa ninkii dabagelaysaa ninkii markuu watana sidii hooyadii aabihii ay go-aan ku lahaayeen ninkii haddana go-aankii leh yani marnaba iyada ma soo gelaysa yani codkeeda inay dhibato ninkana siduu u arkaa naagtiisa camal siduu u arkaa naag iska aamusan oo hadalka yeelaysa camal maku faraxsan yahay saas oo kale wuu rabaa miyaa naag saas ku haasta isaga waxaa waaye wuu faraxsan yahay wuuba rabaa noocaas waaye nooca uu rababa yani hadduu rabo qof wax bartay gabdho badan wax bartaa jirta wuu doonan lahaa yani waxay dhihi lahay adiga may ani ima anfacdid yani adi ma tiid qofkeyga yani raali noqo waa imaanaysaa laakiin wuxuu ugu soo talagalaba inuu helo yani wuu arkaa qofkan isaga inuu iyada ma arkin laga yaaba asaga inuu arko yani inay tahay gabar la hogaamiye oo la baray yani waxaan sameeyey waxaan yeel waa yeelaysaa yani siduu asaga rabay waay asagana sidaasoo kale inuu hogaamiyo sidii waalidka u hogaaminayeen oo kale inuu hogaamiyo marka waxaa meeshaasna waxaa waaye iyadiyo xabiskii inta ahay ka soo baxday xabis kale ku bedelatay yani sidaasay iyadana ku ilmo dhalaysaa oo yani dulqaadkii
sidii waxay is leedahay kuma soo hadal celin karto hooyadii aabihii kuma hadal celin karin asagana kuma hadal celinayso yani siduu rabo yeela dharkee soo gadaa wuxuu rabo soo gadaa asagaa wixii dhan sameynaya ma dhehayso waxaan anaa go-aan leh anaa soo inta ka soo baxay anaa inta yeelay anaa inta yeelay ma dhehayso markasta waxaa waaye yani asagii unba sidii waalidkii oo kale u hogaamina waana naagtii yani intaasna waxaa waaye markaas laakiin dadkiista hadalkooda ma yeelayaan ama ninka iyo waalidka ama qofkiisa ku dha wax miisaan karta camal wax kasta sameynayaan ma sameynaya ninka wuxuu leeyahay marka hore waalidka waxay barayaan qof banaanka lama hadli karto ninna iska daa maba la hadli karto saaxiibada banaanka ma mara waaba dad dhintayba yani waxay barayaan inay qalad tahay gabadh inay banaanka socoto yani waxuna maskaxda ka gelinayaan oo yani cuqdada ay ka qabta haddii aragta gabar labisan oo banaanka socota ama iskool socoto waxay leedahay dadkan waa dad si kale ah yani fikrad xun marka hore lagu tilaa maskaxda loo geliyay ninkan wuxuu barayaa meeshan iyo meeshan ma mari kartid saan iyo saan ma yeeli kartid asagana qaynan cusub u furaya yani asaga iyada bes hadduu rabo hata hooyada iyo go-aankooda u xiri karaa marka saas laaligeeda waxaa qofka markasta waa qof la hogaaminayo waa qof indhala oo la hogaaminayo oo hadba dhinac uu rabo u wadi karaa markasta waxaa waye gacanta in lagu haayo qofkii wax u sheega un bay raacaysaa oo qof kale ma raacayso siduu asaga rabo uu raacaya laakiin sidee u aragtaa adig koritaanka carruurta Soomaaliyeed qaladka meesha yaala dhanba waxaa waaye korismada oo ka yimid waxaa waaye gabadha Soomaalida marka hore markii ay dhalato marka la qiimeeyo alla gabadhaydii dhalatay alla gabar baa ii dhalatay alla gabar qurux badan baa ii dhalatay gabar fiican ii dhalatay yani marka hore in kor loo qaado qiimaha mar haddii markii hore ee qiimihii hoos loo dhigay yani ama la maqlin dariska ugu dhow la maqlin wiil miyaa marka la maxaa la maqo maxay dhasheen marka la warsada la maqlaa hadduu wiil yahayna asagoo la warsan waaba la geynaa meesha sheekada marka saas la aligeeda marka horta kow waxaa waaye waa in horta la qiimeeyaa marka inay gabar dhalatay nolosha haweenka way ku xiran tahay korismada marka la qiimeeyo sida u dhaqmo lahaayeen marka la qiimeeyo horta kor loo qaado la gabar baa ii dhalatay gabar qurux badan ii dhalatay oo gabadhii markay sanad gaarto oo sanad wixii ka dambeeyay loo bilaabo yani oo jacayl lagu koriyo oo loo waxa laakiin fasax yar waa intaa galno saacadii hadda fasax yar ay galaynaa waan ku soo laaban doonaa barnaamijka la dhaho adalku ku tookalay marka oo goolkii degday iskool ma bilawday maxaa sameysay u dareemta ama ilaahay sidoo ku caawin jiray camal marka kaliya ee camal ilaahay ka fikir jirta camal maskaxda waxa soo dhacday qofka ilmaha dhalay oo intaas ka maqan oo sanad kasta ka maqan oo iska imaanaya waqti waqti baxaya awil iyo hal gabarta ahayd gabar fiican Maryam waxay ahayd saaxiibadeyda waxay ahayd gabadheyda yani maxaa ku hoosay gabartaan soo xasuusatay hadda barnaamijka ayaan ku soo laabanay meeshii ku harnay ayaan ka wada daynaa haye raxmo wax ma ka sheeg kartaa korismada Soomaali ariiq sababta waxa dhibaatada jirta dhan waxa waaye Soomaalida carruurtooda gabdhahooda haysata korismada haddii korismada ay dhacdo in lagu faraxo ilmaha yarka markay yimaadaan oo ilaahay hadiyad u siiyey يعني أي قاتان يعني هديداس أي قاتان أي علمي مركي كورينيان هل سنة واحد قدام بي أي بلاوان إن علمي وشيغان لبس سنة يعني إن جعل توسان أي علمي يعني فرحة كوريان كبعدين يسميان أي نحن وحن وحون واي وحن هسمين وحن لما سمي وحن وحفي عن واي وحن إلهي ورتيس وكحن تهاي أو وحكست أي كالبران أي إلهي توكلان أي علمي إلهي عندي زقليان أي آمنان إلهي banaanka u diraan oo iskool ay aadaan xanaanada aadaan iskool ay aadaan wax bartaan bulshada dhex galaan saaxiibo la soo waxyaalo waxa maskaxda carruurta ay furaysaa taasina waxa waxyaalo badan ba iska bedelaya nolosha gabdhaha waxay keenaysaa in ay bartaan bulshada waxay keenaysaa in banaanka ciyaaritaanka yani maskaxda u dhisto waxay keenaysaa in saaxiibada dariska ay la ciyaaraan banaanka ee iskuulka la aadaan inay isdhaafsadaan su'aalo inay bartaan inay ka hadli karaan nafsadooda inay bartaan inay go-aan leeyihiin ay yihiin yani dad go-aan leh oo waxay rabaan way diidaan waxay rabaan ay qaataan ay isku kalsoonaadaan inay yihiin bini aadan oo yani xurnimo buuxa leh inay bartaan oo waalidkana uu wax bara
oo kabacdina ilaahay ku kalsoonada ilmihii banaanka loo diro taas ayaa bedeli karta taas way tan looga baahan yahay marka ilmihii markay yar yihiin inay sameeyaan waalidiinta waalidka iyo caruurta Soomaaliyeed ma sheekaystaan dhexdooda ma sheekaystaan dhibaatada jirta waaba sheekayslaanta hadday sheekaystaan ay jeclaadaan ay iswarsadaan wax kasta ay sheekaystaan waxaa imaanaysa caruurtii inay wax kasta u sheegaan go-aan yeeshtaan hooy saasaa la dhahay maxaysaan u tahay maya hooysaana la dhahay hooysaan maxay u tahay hooy kan way hooy maxay kan u tahay yacni sheekada waxa loo baahan yahay inay sheekaystaan waay laakiin caruurtii guriga markay soo galaan hay dad waaweynaa meesha fadhiya baxa qolka gala hay inta dad waa mar kasta waa ilmihii qolka in loo ay ku jiraan lamaba rabo inay dadka weyn ay soo dhex galaan maxaa sida caruurta dadka weyn camal way dhibayaan camal way ku qaqayaan waxay diidayaan inay hadallo dadka yacni wax u tara in dadkan u ka islaamaan ataama wax iswarsadaanba in ay wax yaroo hadal ayaga waxay u sheegaan maayo inay wax banaanka inay maqlaan ciyaalkay diidayaan yani ciyaalka dhan waxaa waa ciyaal oo sida oo alaab meel la dhigday oo kale marba qolka aad markay dadka baxaan way soo baxayaan dadkii maxay sheegay dadka intay ka yimaadeen hadday fadhiis dadka meel dheer ka yimaadeen hadda magaaladeena saasa kale wax yar iska waa faa'iido baa taani wax yar iska dhaafsadaan ay iska maqlaan laakiin waalidku waxaa looga baahan yahay inay ciyaalka la sheekaystaan inay ra'yigooda dhiibtaan inay baraan ciyaalkan inay ra'yi leeyihiin yani waxaan si kula tahay waxaan ma samayn karnaa beri waxaan ma soo gadan karnaa oo waxaan yani waxaan ma jeceshahay noocan inay leeyihiin inay wax doortaan marka ciyaalkii maba la baran in ay wax doortaan kalsooni ma laha miya caruurta kalsooni ma laha waxay isku arkaan wax oo hadli karinba oo dhulka yaala marka horeba lama siin inay hadlaan oo kalsooni lama siin ciyaalkiina waxay dareemeen ayagana inay kalsooni leeyihiin hadday hadlaan hata iska hadleen ata yani waxa oo faa'iido ah aan lahayn marka saas la'aligeeda waxaa waaye ciyaalka iyo waalidka waxay u baahan inay isbartaan waxay u baahan yihiin jacayl u baahan yihiin waxay u baahan yihiin tarbiyad cunuga in la tarbiyeeyo oo la baro waxa xun waxa qaladka ah cunuga wuxuu u baahan yahay in banaankaas inuu aado oo yacni banaanka wax kasta waa ka imaanan karaan laakiin se cunug yar waaye waxaa aaminsanahay aniga oo sida aniga ugu soo koray banaanka yacni ilmaha yarka si wax qalad waaweyn ay samayn karaan maba jiraan way u baahan yihiin banaanka way u baahan yahay wada soo qaata way u baahan yihiin yacni in ilaahayna lagu kalsoonaado ilmahan ilaahay u ilaaliyo in ilmihii haddii banaanka aada dhab qof oo yacni sax waa laakiin ilaahay la ilaalin kara ilaahay unbaa u ilaali kara taasaa meesha taasaysa fahamsaneen yacni dadka familka Soomaaliyeed ama waalidiinta Soomaaliyeed ilaahay sidoo u jecel yahay caruurta Soomaaliyeed ilaahay sidoo u arkaa haweenka Soomaaliyeed wuu jecel yahay ilaahay sababta indhihiisa u arkaa yani gabadhan dhibkaas dhan soo marta markay gurigeeda aado waxa guriga hooyadeed way caawinay waalidkeeda caawinay ilaahay wuu jecel yahay qof kasta waalidkiisa hadal ka dhageysta maadaama waalidka hadalkiisa yeelayso oo hadalka waalidka dhageysanayso ilaahayna wuu jecel yahay qof kasta oo waalidkiisa ixtiraamayo haddana way ka baxaysaa waalidka haddana waxay leeyahay qof guri leh noqonaysaa iyadoo ogeynba oo qofka ay raacday oo yani iyadoo guriga joogtaba in wax ka dhig in qof iska soo doonto yani camal ilaahay sidoo u jecel yahay caruurta Soomaaliyeed caruurta yaryar caruurta wuu jecel yahay marka caruur kasta wuu jecel yahay ilaahay wuu ilaalinayaa sababta ilaahay isagaa siiyey ilmahan waa hadiyad ilaahay siiyey caruurta marka mar kastana wuu ilaalinayaa wuuna jecel yahay jecelkiisoo dhan waayo asaa yacni farxad ahaan u siiyey familkan Soomaaliyeed oo hadiyad ahaan ciyaalka u siiyey marka ilaahay mar kasta wuu ilaalinaya laakiin familka ayaa waxaa ka maqan systemkii ilmihii wax lagu bari lahay tarbiyaddii iyo yacni in ilmihii ilaahay lagu aamino oo ilaahay uu ilaaliyo marka waxaa ka maqan karismadii ciyaalka hadday qaldan tahay oo familka iyaga naftooda oo yacni si qalad kusoo koray yacni oo lagu hayo maxbuus oo gurigii lagu hayo oo gabadhii waxaa laga yaabaa hadday dhacdo inay weynaataba oo yacni gabadhii nin weligeed arkin u yimaado oo ninkii la siiya saasay tahay gabadhii ninkii ay raacdo haddana sidaasoo sidii waalidku ixtiraamayso ixtiraamto yani meeshii kasii socoto sidii sheekadii gurigaan ay ku jirtay xabis ku ahayd haddana guri kale ay aadaysa xabis ku noqoto marka waxyaalo badana jira oo u baahan tahay inay fikradahooda ka bedelaan Soomaalida oo waalidiinta ah si ay ula dhaqmi lahaayeen caruurtooda haweenka Soomaalida laakiin si iska fikiraan camal si iska shaqeeyaan oo kale quruux camal timaha ma samaystaan camal haweenka Soomaaliyeed waxa hadii dhaano sida hore u sheegnay kuwaan kaliya dhibaataysan maaha haweena kale wax bartaa jira saa hore kuu sheegay oo yacni dad wax bartay hore maray sida anigoo kale wax bartay dad yani waalidiintooda siiyey fursad oo ilaahay wax tusay oo ilaahay
oo ilaahay unbaa caawiye wax tusay inay u baahan tahay gabadha inay tahay yani wax muhiim ah ilmo muhiim ilmo yani wax qaali ah yani sidii wiilka qaali ugu yahay inuu gabadhan qaali u tahay yani jecel caruurtooda oo wax baray oo kuwaasoo kale sidii qofka sida annagoo kale iskaga shaqayno oo u aadno koofeer la aado oo yani jirkaaga laga shaqeeyo jirkaaga oo yani wejigaaga oo si kasta way sameeyaan kuwaas laakiin kuwan hadda aan ka hadlayno waaba dembiba u yahayba waaba wax weyn qalad weyn ay sameeyeen buy haddii ay meel aadaan timahooda gurigooda ka shaqaynaya maasha allah caadi waxaas weye yani caadi shaqo caadi ah laakiin wax oo weyn oo yani kalarka timaha iyo waxaas ah maayo waxaas oo kale maba loo ogolaba yani ma mari karaan shakadaas laakiin kuwa kale way ogyihiin jirkooda yani biniaadan iyo dad waxaa lagu diiday laakiin ceeb ma keenay camal waxaa loogu diiday waa wax khalad aba yani waxaan waa wax oo yani dembi ah wax la ogolaanba oo kale waa yani wax dhaqankooda oo diidayo oo kale wax mar hore oo jiray ayay isticmaalaan marka wax jaahilnimo ayaga mar hore wateen oo wax mar hore ahay waay laakiinse muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inay bedelaan yani waalidka inuu fahmo gabadhan inay wax baranayso waxbarashada waay meesha keliya ay uga baahan yihiin inay yani bedelaan waxaa waaye in ay gabadha wax baraan waalidka naftiisa inuu wax barto in waxbarashada muhiim tahay qofka markuu wax barto ayuu ogaanaya wax kasta waxbarasho la-aanta keenaysa in uu wax kasta oo ka hortegaysa haddii qofka wax barto yani waxa xun iyo wax fiican uu baranaya hadduu wax fiicanna hadduu asaga wax fiican bartana caruurtii uu dhalayna wax fiican uu baraya laakiin haweenka Soomaaliyeed misdex kalaan iyaga ama ma sheekaystaan misku yimaadaan sidee u nafisaan camal naftooda way isku yimaadaan laakiin waxaa isku yimaada laba qayb oo kale qayb wax baratay ayaga waa qaybtu isku yimaadaan waa qayb yar qaybtaas laakiin qaybtan badan oo saa u dhibaataysan ayagana qaybta noocan oo kale isku timaada noocan oo yani la hogaamiyo oo madax banaaneen oo ra'yigooda dhiiban karin kalsooni lahayn yani oo ah dad gacanta lagu haya shalayna waalidiinta gacanta ku haya haddana nimankooda gacanta ku haya maxaa misdexgalaan labada xabood camal mis fahmayaan miya ama nimankooda ma ogola miya kow isma fahmayaan labana waxaa waaye nimankooda ma ogola hataa qoysaskooda familiyada ka yimaadeen hataa mis ogola kuwaan waxay dhahaan kuwaan waxba baranin oo jaahiliinta naga daaya kuwaan waxay dhahayaan kuwaas oo isku ismaleeya dad si kala ah oo dambiilayaasha oo iskuulka aada ama waxaan sameeya yani wax uma weynayaan ay ku eedeeyaan marka qoladan waxay ku eedeynaya yani waaba saxba inay wax ma bartaanba waaba jaahil qoladan laakiin waa iska dhahayaan yani dad wax bartay oo yani oo shaqeeyo oo macalimiin ah ama takhaatiir ah gabdha wax bartay oo yani u baahan yihiin ayaga u baahan inay caawiyaanba yani waxaa la leeyahay dambiilayaal bu waay dadkan waaba xadgudbeenba heerkii raggi wax baran jiray oo raggi shaqeynaya way ilbixeen oo xadkiiba dhaamay xadkii wiilkii shaqadiisaba lala qaybsaday oo kale iyo wiilkii waxbarashadiisa lala qaybsaday yani sida u fahma hadalkaas sida u fahma camal wiilashii gabdhaha usmeel ma joogaan camal nimankaas sareeya naagahana hoosa loo dhigaa waa saas hadda fahanta sababto ah wiilasha waxaa waaye markay dhashtaan maalintuu dhashto hal second meel kasta laga maqlay wiilka yani waaba la qiimeeyo meel kasta waxaa reerka wiilkaas wiilaa u dhashtay wiilaa u dhashtay kabacdina waxaa wiilka markuu dhashtay kabacdi waxaaba la bilaabaya wiilkan waxay la bari lahay muxuu noqon lahay oo ku shaqaysan lahay yani noloshiisa dhan iyo xoolaha hadee uu leeyihiin cidda xoolaha intii la sii lahay waxyaalo badan ay ku mashquulayaanba wiilkan laakiin gabadha markii ay dhalato maba la maqlinba maxaa dhashay marka la dhuwan been ay gabaran dhalay laakiin markay guriga joogaan walaalayaal ahaa wiil iyo gabar walaalo ama gabar ma ka maseertaa wiilka tawi hooy wiilku jecel aaba wiilku jecel yahay animal jecel camal waaba dhibkeeda waaba qarsanaysaa naaga Soomaalida hore kuu sheegay waa naaga karti leh dulqaad badan waa fiican yihiin si kasta oo fiican yihiin waa dad masaakiin ah laakiin haddii wax kasta ay aragto yaaba ka soo saaraya waaba u qarsoon tahay wax kasta waxaa waaye dhib kasta way arkaysaa laakiin qof sheegaya maaha laakiin wiilka walaalkeed badanaaba inay wax u aragto lagama yaabo jecel ka dhexeeya miya camal family idan jecel walaalaha jecel ka dhexeeya wiilasha gabdhaha ama wiilasha gabadh wiilka waaba xanaaqa walaashiis banaan ma aadi karto sidii odayga oo kale uu u ogyahayba
ama walaashay banaanka lagu arkay wuu soo ordaya wuxuu leeyahay hay banaanka aada maanta banaanka maxaa ku istaagday ya istusaysa banaanka yacni asaga wuxuu iska dhigaya qof kale oo asagana mas-uuliyad kale oo guriga oo yacni xakun kale hadda waa macsan tahay inta noo imaatay oo noo hadashay hadda walaalayaal qaybta hadda ka hadlaynay oo ku saabsaneed haweenka Soomaaliyeed intan bay ku dhamaatay haddaad rabtiin intaa nala soo xiriirtiin emailkeena iyo telefoonkeena waa kana